بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا شبكة sologroups.com laga barto cilmiga ICT iyo English oo ku bax luqadda afka Soomaaliga magacaygu Cabdinaan Ismaaciil mar walba waxaad nagala soo xiriiri kartaan info@sologroups.com waa casharadeenii xiisaha badnaa ee luqadda Ingiriiska ama English language ardaydii la bilaabatay casharadan xiisaha leh waxaan filayaa in ay aad u fahmeen beginnerska ama bilowga اللغة الإنجليزية وأنكم بلنا عشرة يمكن واحد نسوي قارني a course part 2 أما قيب طلبات ويسيب الدلية مركا سيدي حاضر هيت grammar أو نحوها functions vocabulary dialogues يعني كوسي وضينا يضو أي تحي نوع فلاشة أو جرافيكا مركا واحد زميلنا إن شاء الله امتحان وحي أن صوبرني تاسو aad fahmi kartid qaabka loo isticmaalo marka xusuus waxa mudan mar walba waa in aad la socoto casharada oo aad baratay ereyo cusub waxaanu sameyn doonaa conversation kuwaas oo ay ka mid yihiin dialogue ama wada hadalka la sameeyo mar walba ayaan ku baran doonaa marka waxaan rabnaa inaan barano ugu horeyn grammarka ayaan ka bilaabaynaa waxaan tegayaa shabakada sologroups.com ayaan tegayaa haddii aadan member ka ahayn tabcan waa iska registrayn kartaa videogan halkan yaala daawan kartaa si la iska diiwaan geliyo waxaan leeyahay waxaan ka bilaabayaa dhanka iyo home-ka ayaan tegayaa si aan log in aan u sameeyo kadib waxaan aadayaa dhanka iyo English waxaan tegayaa tutorialka ayaan tegayaa saan ku aragno beginners part 2 halkan ayuu diyaar ku yahay marka fadlan isku day inaad halkan ka soo bilowdid all the way down oo socotid halkan ayaan ka bilaabayaa waxaan ku aragnaa beginners a course part 2 ama qaybta labaad ee beginnerska waxaan ku yeelaa grammarka functionka vocabulary iyo dialogue marka hore ayaan u soo aragnay micnaha iyo waxa laga wado noocyaha ay kala yihiin tusaale ahaan naxwaha iyo functionka marka functionka noocyo kala duwan ayaa loo isticmaalana hadda korna waxaan sheegnay in luqadda Ingiriiska mar walba ay tahay ereyada loo isticmaalo meeshii munaasib ku ah ama ku habboon in loo isticmaalo marka functionka purpose ugu weyn waa u isticmaalida luqadda Ingiriiska si communication lagu sameeyo ereyada qaarkood la isugu xiro marka aad ayay muhiim u tahay functionkan waxaan kaloo aragnaa vocabulary waxaan kaloo aragnaa dialogue wada hadalka marka a personal pronouns and verb to be kan a verb tusaale ahaan xilliga laga hadlayo subjectiga ayaa waxa la sameynaya I marka verb markuu yahay to be in a past tense tusaale ahaan marka loo isticmaalayo was haddii verb to be in the present tense am uu noqonaa haddii loo isticmaalayo verb to be in a future tense wuxuu noqonayaa will be marka I was am will be marka wuu sii soconaya you were are will be he she it kuwaasoo dhan waan ku baran doonaa insha allah cashirka isagoo aada u fudud introductionkan waan samayn karnaa oo maaragtay ku bilaabidda ah iyo nambarada iyo kadibna interview lala yeeshay ama waraysi lala yeeshay a computer shop owner shakhs kale meel computerada lagu iibiyo oo qof maaragtay neighbors waxa laga wadaa dariska ah si uu u bixiyo wixii biil ahaa ama lacagihii waxa loogu sameeyey marka kaas aad ayuu muhiim yahay marka waxaan rabnaa markaan ka hadlayno pronouns English wuxuu yidhahdaa pronouns can be divided into several categories waxaa loo kala qaybin karaa categoriyaal kala duwan ayaa loo kala qaybin karaa sida personal, indefinite, reflexive, recuperative, possessive, demonstrative, interrogative iyo relative ayaa loo kala bedelaa marka kuwaasna casharada mustaqbalka ah ayaan ku baran doonaa marka waxaan rabnaa shabakadda casharadan Ingiriiska ka baxa inaan simple aan ka dhigno ama fudeed aan ka dhigno si fahmidda iyo barashada ay noqoto mid fudud ugu horeyn waxaan ku bilaabaynaa dhanka iyo grammarka ayaan ku bilaabaynaa personal pronouns verb to be haddii aan riixo halkan waxaa yaala personal pronouns ayaa halkan yaala shakhsigan wuxuu leeyahay I am George waan bilaabayaa waxaan ahay George ayaan ahay marka ereyadan dadka luqadda Ingiriiska bilowgay u tahay aad ay ugu wareeraan marka waxaan leeyahay star ayaan leeyahay she iyada she Susan she waxay isticmaalaysaa dhedigi labkana waa kan he isaga waa Fred ayaa la yidhaahdaa marka haddii aan siraxno it waa xayawaanka it is rover magaca waa rover ayaa la yidhahdaa capitalka ka bilowdo
marka saas ayuu socnaa they iyaga they are John, Tim and Susan. marka waa kuwii hadda aan soo aragnay oo aan ka hadalnay. marka wuxuu leeyahay I'm George, you are adiga waxaa tahay magacagaad sheegaysa markaa ku daraysaa. We annaga we are Janet, George and Pablo. marka theyna waa la sheegay, I waa la sheegay, he waa la sheegay, she waa la sheegay, we. marka mar labada ayaan ku celinayaa. aniga wuxuu leeyahay waxaan ahay George, waa Susan she ereyga eg. kadibna waxaa imaanaya he ayaa imaanaya isaga. waa Fred, he's Fred. she's Fred ma dhihi kartid waayo waa lab iyo dhadig ayuu ka leeyahay. it xayawaanka it ayaa loo isticmaalaa. it is Rover ayuu noqonaya. marka si jamca ahaan ah waxaa imaanaya iyaga they are John, Tim and Susan. John and Tim and Susan. iyo iminka waxaa imaanaya I am George, anigu George adigana maxaa tahay? you are magacaaga ayaad ku daraysaa halkan. functionkan we waxaan ahay Janet, George and Pablo. haddii kan labaad aan tago verb to be. marka verb to be waan aragnay hadda oo waxaan verb to be wuxuu noqonayaa I was, am gabi ahaan. marka personal pronounka markuusan yahay waa I. verb markuu noqdo wuxuu noqonayaa am. tusaale ahaan I is ma noqon karo. she wuxuu noqonayaa is, he wuxuu noqonayaa is, it wuxuu noqonayaa is ayuu noqonayaa. we markuu noqdo jamaca wuxuu noqonayaa are, wuu isbedelaya. marka we is ma dhihi karno. you are ayuu noqonaya. marka they are ayay saas noqonaysaa. marka kan waa personal pronounka, kan waa verb. haddii aan yidhaahdo kan saddexaad aan tago a personal pronouns and the verb to be. put the right word in the spaces of sentence, press the button to demo. marka ereyada meesha saxa ah geli. adiga ayaa lagaa doonayaa ardayga ah inaad samaysid. tusaale ahaan waxaan leeyahay kan ayaan qabanaya oo soo qaadaya, waxaan halkan ayaan keenaya he's Fred. we of course waxay noqonaysaa are ayuu noqonayaa kan halkan ayay soo dhigaysaa. she ayay noqonaysaa tan waa gabadha la yidhahda Susan. I am George, George ayaan ahay. kan wuxuu noqonayaa it ayuu noqonayaa waa xayawaankii oo sidan ah. kan waxay noqonaysaa they are ayuu noqonaysaa. marka check ku samee, dhammaantooda waa sax ayuu noqonayaa. laakiin waxaa xusuus mudan in aad mar walba eegtid xilliga check aad ku samaysid wax walba san ayuu kugu soo baxaya. kadibna waxaan tegayaa waxaan tegayaa 4 ayaan tegayaa. marka move the words in the right place ayaa lagu leeyahay. to make correct sentence press demo button haddii aad doontid in demoga aad ku baratid. marka halkan waxaa yaala are John, Susan and Tim they. marka ereyga ayaa lagaa doonaya saxda. haddii aad doontid inaad baratid qaabka loo soxo demoga ayaad eegaysaa. demoga ayaa wuxuu ku leeyahay kugu sameynaya I wuu ku qaadaya wuxuu ku geenayaa am san ayuu noqonayaa. marka kan waan xirayaa. marka kan adiga ayaa lagaa doonayaa as a student. marka fadlan check answers ha sameyn. adiga isku day wixii aan hore usoo aragnay in aad saxdid. waa muhiim, waana lagaaga baahan yahay. saas ayuu ku soconaya. marka grammarka saas ayuu noqonaya. markan ugu dambeeya adiga ayaa lagaa doonaya inaad samaysid oo ah kan ah ayaa lagaa doonaya inaad samaysid. kadibna waxaan u gudbaynaa functionska ayaan u gudbaynaa. kan aad ayuu muhiim u yahay. marka wuxuu ku leeyahay introductionka inta hore bogga hore wuxuu aadaa intro ayaa laga soo gaabiya luqadda ingiriiska. wuxuu ku leeyahay press start to begin. riix halkan inaad bilowdid informal introduction. informalku wuxuu noqonayaa mid iska caadi ah oo aan official aan ahayn. tusaale ahaan waxa official markay yihiin oo rasmi ay yihiin, informal iska caadi markay yihiin way kala duwan tahay. waa meel xaflad ay ka jirto. waan bilaabayaa. hi I'm Mary ayay leedahay gabadhan. hi Mary I'm John. aniga waxay leedahay John baa la yidhahdaa. saas isugu jawaabeen. kadibna waxay leedahay hello my name is Mary. kadibna wuxuu leeyahay hello Mary I'm John. waxaan ahay aniga John ayaan ahay. si uu sii soconayaa eeg. I'm Mary how are you? aniga waxaan ahay Mary adigu see tahay. hello my name is John. marka kani waa qalad tabcan. sababtu waxay tahay erey wax su-aasha la weydiiyey ee jawaabtiis ma laha. hi how are you? I'm Mary hi I'm John. kan waa saxsan yahay marka. marka haddii aan eegno hello I'm Dr. Smith. waxaan ahay Dr. Smith. how do you do? ayuu leeyahay qofkan kale. doctorka saas ayuu la hadlaya. waxaa kaloo halkan yaalla haddii aan eegno hello I'm John Smith ayuu yidhi. doctorki baa ka reebay. nice to meet you Pete Brown. waa qalad sababtoo ah shaqo iskuma leh. waa magac kaloo ka duwan. marka adiga ayaa lagu jahwareerinaya. hello I'm John Smith pleased to meet you Pete Brown. weli waa qalad. waa formalkii waana dhammaaday. marka more examples haddii aad rabtid kan ayaa sidaad u riixaysaa.
introduction sana soo baxaya. Hi, I'm Mary. Answer, hi Mary, I'm John. Hello, my name is Mary. Answer wuxuu noqonayaa ma jawaabta. Hello Mary, I'm John. I'm Mary. How are you? I'm Mary. Full stop ayaa la sameeyey. How are you sidaa tahay? My name is John. marka sana ayuu soconayaa. kadibna waxaanu tegaynaa kan labaad ayaanu tegaynaa. marka hadda adiga ayaa lagaa doonayaa in aad saxdid. marka how do you do waa qalad. Hi, I'm Steve. kanna Steve waa qalad. marka introduction sana ayuu ku bilaabanayaa. Hello, I'm Mr. Smith. haddii uu sax yahay kan haddii aad reexdid qalad, kan haddii aad reexdid qalad. tabcan how do you do ayaa sax ah. marka sana ayuu kusoo baxaya. introductionka labaad, hi, my name is Janet. How do you do? Hello Janet, I'm Pete. haddii uu yidhaahdo kan ayaa saxa. marka inta kale adiga ayaa lagaa doonayaa in aad samaysid ardayga ah. waana fahmi kartaa qaabka u socda sababtoo ah waana soo marnay. kan saddexaad, introductionkan wuxuu ku bilaabanayaa uu leeyahay informal introduction of the party. weli partiga ayaa la joogaa. isar ayaa leeyahay, hi Mary, can I introduce Jack? ma ku bari karaa shakhsigan la Jack? Hello Mary ayuu leeyahay. Nice to meet you. barasho wanaagsan. marka qaabkaas ayaa la isku bartaa. Mary, this is Jack. Hi, how are you? Hello, how are you? saas ayaa la isugu jawaabaa xilliga dadka la isbarayo. marka erayadan waa conversationka muhiimka. waxaa kaloo jira Mary, Jack, hello, hello. waa is dhihi karaan gacanta hadduu ku taago. Hello, Jack, Mary uu dhihi karaa, ku socon karaa. Mary, have you met Jack? Mary, weli ma aragtay ma isqaabasheen Jack? No, maya. Hello, I'm Mary. waxaa la yidhahdaa Mary. Hello Mary. marka waa informal introduction. barashada noocdan waxaa la yidhahdaa informal introduction. example haddii aad rabtid saan ayuu soconaya. marka start ayaa leedahay. Dr. Smith, may I introduce to Mr. Brown? Dr. Smith ma ku bari karaa shakhsigan la yidhahdo Mr. Brown? How do you do? kan wuxuu leeyahay how do you do. qofka marka ugu horreysa aad is aragtaan how do you do iyo how do you do ayaa la isugu jawaabaa. saan ayuu ku soconaya. marka waan kasii gudbayaa. kan afraad ayaan tegayaa. waxaan tegayaa kan shanaad. kana sidii ayuu ku soconaya. marka choose the right answers for introduction. these introductions ayuu ku leeyahay. isbarashadan introductionkan ama ugu horeyntan waxaa la bartay oo dadka isbartay. marka aan whatsapp ma dhihi kartid. waa luqad ingiriis aan lagu hadlin. hadduu dee Jack hello uu yahayna dee kaasaa sax. introduction, Janet, have you met Pete? How do you do? markaas Pete ayuu wuxuu leeyahay hi Janet, I am Pete ba leeyahay. kaas ayaa sax ah. introduction, hi Mary, can I introduce Mark? Mary ayaa waxaa la yidhi hi Mary, ma ku bari karaa Mark? Hi Mark, hello Miss Mary. ma dhihi kara qalad waay. kan hi ayuu ka bilaabaya. ma yaqaano in la qabo ama inaan la qabin ama inay guursteen inaysan guursan. miss ma dhihi kara. marka saas ayuu ku soconaya. marka inta kale adiga ayaa lagaa doonaya. marka halkan ayaa kasoo bilaabaysa kow ilaa halka ugu dambeeya aad tegaysaa. adiga ayaa lagaa doonaya. kadib waxaan u gudbayaa vocabulary oo ah muhiimadda ugu weyn ee luqadda ingiriiska isku xirta. waa the numbers. kan aad ayuu muhiim yahay. numbers and their names. click the numbers to find their names. riix ayuu ku leeyahay number si aad magacooda ogaatid. waxaan ka bilaabaya halkan 4 8 3 2 1 5 7 6 9 iyo kan oo ah kan ugu dambeeya number 10 sidaan u ah. marka exercise haddii aad doonaysid waa kan halkan ayuusaan u yaallaa. waxaa lagu leeyahay which number is it? vocabulary of numbers. marka waxaa laga yaabaa dad qaarkood inays yidhaahdaan waa basic. laakiin basic maaha. dad aan aqoon ayaa jira qaabka loogu dhawaaqo ama qaabka loo helo nambarada. look at these numbers. eg nambaradan halkan yaalla and click the number with the same name. marka waxaad riixdaa nambarka iyo qoraalka magaciisu is leeyahay. 5 oo kale waa kan. 2 waa kan. saas ayaa ku soconaysaa. marka haddii aan qaldo waan iska riixayaa. random aan riixayaa. marka waa la isaxayaa. waan iska riixay anoon eegan ayaan riixay. marka waxaan leeyahay check uu sameeyaan leeyahay. intaan waan qalday inta kale sax ayuu noqonaya. next ayaan leeyahay press start. riix start oo halkan ah to show the name of number. si aad u sheegtid magaca numberka. then click the number as it falls. kadibna riix numberka isagoo soo dhacaya. fallska waa dhacitaanka. is falling tusaalaan dilgeeda uu soo dhacaya. to make it go away si uu u tago haddii aad xushid mid saxa. waad sii socon kartaa gone until all the numbers are gone. be quick. isbabse ayuu leeyahay. halkan ayaa saad riixaysaa. 9ka waa kan yuu ku soo gaaraya lagu leeyahay. 5ka waa kan
soo gaaranaya lagu leeyahay 4ka waa kan kadibna 1ka waa kan 2ga waa kan iyo ugu dambeyn 6kana waa kan taas ayuu soconaya marka restart ayuu ku soconaya 9 equals sidan ayuu ahaanaya next ayaan leeyahay which numbers is it numberkee halkan ah look at these numbers and write their names in the space below marka lagu leeyahay numberkan eeg magacan hoos ku qor iminka waxaa soo gelaya in ereyada qoraalka horaan usoo aragnay markii hore waxaan islahayn waxba ma ahan waa basic maxaan u baranaya kaas laakiin hadda ayaa laga rabaa qoraalka inaad saxdid sababtoo ah la dooni maayo spellinga inuu qalad noqdo tusaale ahaan haddii aan idhahdo kan 7 kan waxaan leeyahay 1 capital letter ayaan ku bilaabayaa 5 ayaan leeyahay kan waxaan leeyahay 8 ayaan leeyahay saas ayuu qormaa kan waxaan leeyahay 9 kan waxaan leeyahay 3 kan waxaan leeyahay 10 iyo ugu dambaysi kan waxaan leeyahay 4 marka wax walba ma saxay bal show the answers you're right marka iminka spellingkeena xataa wax saxsan yahay tusaale ahaan 8 sida loo qoro runtii easy maan haddii loo eego 1ka marka waan baranay kaas marka haddii aan usii gudbo iminka wuxuu leeyahay click a word to see the number iminka riix erayo ama erey si aad u aragtid numberka 19ka waa kan 20 15 3 13 13ka 11 12 14 16 18 marka xilliga ku dhawaaqida numberada waa in qofka kula hadlaya uu fahmaa kaasna waa muhiim next ayaan leeyahay marka vocabulary of numbers number 11 to 2 to 20 ayaa halkan saan u yaala marka xayeysiin ayaa soo gashay team viewer oo soo raacday marka 11 equals 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 saan ayuu ku soconayaa waa numberska kanna waa numbers 11 to 20 qaabka loogu dhawaaqo next ayaan leeyahay look at these numbers and click number of that name marka waa kii ugu horeeyay aan soo aragnay oo ahaa kan ugu dambeeya kan ayaan iminka tegaynaa kan ayaa ugu dambeeya oo ah 15 to 20 16 look at these numbers and click the number with that name marka waan fahmi karnaa 12 kan ayuu noqonayaa 11 kan ayuu noqonayaa 18ka kan ayuu noqonayaa 17 14 13 20 and 15 marka check the answers dhammaantooda waa right ayuu ku leeyahay ugu dambaystii waxaanu tegaynaa kan aad ay muhiim u yahay wuxuu ku leeyahay fine numbers nambaro qoraal ah ka dhexel ayaa lagu leeyahay halkan kaasoo ah they go up and down and the backwards kor iyo hoos iyo aadan iyo gadaalna waa u laabtaan qoraalada to help you each number has its own color number walbood heshidna wuxuu leeyahay midabkiisa but if you make too many mistakes you must start again haddii aad samaysid aqladaad fara badan waa mar labaad in aad bilowdaa marka qaabkaas ayuu u shaqeynaya qaabkana muxuu yahay marka nambarada halkan ayay ku jiraan tusaale ahaan haddii aan idhaahdo 20 ujeeda 20 ayaasaan igu soo baxay marka inta kale waad raacaysaa nambarada halkan ku jira marka maskaxda in laga shaqeysiya laga rabaa halkan waxaan ku aragnaa 14 waa aragnaa saan ayuu usoo baxaya marka micnaha iyo waxa laga wado waxaan filayaa in aan fahmi karno dhammaan marka ereyada across overkan ayaa saan isu raacaysaa mid walbana waxaa soo qabanaysaa siduu u shaqeeyayo soo qabanaysaa marka haddii aan idhaahdo 11 saan ayuu soo baxaya marka waad sii wadaysaa nambarada cross ayuu noqonayaa gadaal ayuu noqonayaa tusaale ahaan haddii kan aan idhahdo kan ma dhihi karo tusaale ahaan kan haddii aan idhaahdo ma soo baxayo sababtoo 10 ayaan ka sugaynay ma soo baxayo sababtoo ah nambar kale ayuu wataa marka qaabkaas ayaa loo raaca waxaana filayaa in aad ka bogi doontaan aad fahmi kartaan kaasna wuxuu ah kan ugu dambeeyo kana marka dialogue waa muhiim dialogue tabcan waxaa la socda video ayaa la socda waxaa la socda cod ayaa la socda tabcan codkaasoo aan garan karno internet download manager hore ayuu kasoo qabanaya marka wuxuu ku leeyahay interview with a computer shop owner waraysi lala yeeshay shakhsi iskale dukaan computerada lagu sameeyo marka ingiriis ahaan ayaanu akhrinaynaa kadibna soomaali ayaanu ka dhigaynaa kaasoo ah please wait till the movie has fully loaded oo kan aan kuu sheegayo click start halkan ayuu ka bilaabaya
then the black arrow at the bottom if you move from one section to next halkan ayuu kaaga soo baxaya kadibna waxaad riixaysaa click the speakers next to the next text start haddii aan idhaahdo interview with a computer shop saasay ku bilaabanaya mar labaad ayaan riixayaa markuu moviga sida loogu talagalo u soo baxo Susan is talking to the owner computer shop listen to the interview si fiican u dhegeysa ayaa lagu leeyahay qaabka ay isula hadlayaan waan furayaa iminka isla hadlayaan marka adiga ayaa laga doonayaa ardayga ah in aad si fiican u dhageysatid haddii aad cod ka maqlin kan ayaad furaysaa qaabkaas ayaa la iskula hadlaa qaabkaasoo ah conversationka ay sameeyaan labada qofood ee kala ah reporterkan ama wariyahan iyo Mr. Smith oo iska leh dukaankan oo computer lagu sameeyo xaaskayga oo akaamka samaysa iyo walaalkay oo iga caawiya dhanka iibinta marka saas ayuu ku socdaa marka cod ayaan gadaal ka maqlaya marka codkii dhinka ayaa maqli doona meeting the new neighbors qaabilaada dariskaaga ama dariskaaga cusub ee iminka xaafadda soo degay isla haddii aan idhaahdo marka dariskaaga sidee new neighborskaada ku hadli kartaa kanay ku sameeyeen Mr. Collins iyo qoyskiisa waxay u soo guureen guri cusub waa markii ugu horeysay is arki doonaan iyaga iyo dadka dariska la ah sanay ku bilaabanaya hello Mr. Introduce you kanay qabanaysaa waxaa la yidhahdaa magacayga jaga la yidhahdaa wiilkaygan waxaa la yidhahdaa Edward hello nice to meet you I'm Steven do you like your new home Mr. Collins, yes, we are very excited. My wife has just gone to do some shopping and Edward is helping me with the garden tools. Neighbor Emma, Ninki, there is Gaha. And how old are you, Edward? I'm 12 this year. My son Jim is 12. He's now at the school, but you can meet him later. Neighbor K, Amma, there is actually, why don't you all come for a cup of tea? Shall we say at 6 this evening? Mr. Collins, thank you. That would be very nice. qofkii dariska wuxuu yiri that's arranged then our wives can meet wujada ereydan horaan u soo aragnay ereygan horayaan u soo aragnay kaasoo ah our wives can meet marka f halka lagu qorin waa plural ayuu noqday ama jamac ayuu noqday can meet at Edward can meet Jim see you at 6 then waxaan sarki doonaa lixda I'm looking forward to it marka xilliga introduction kan dialogue-gan socda wada hadalkan socda luqadda ingiriiska aad ay kaaga caawinaysaa sababtoo ah waxaad baranaysaa everyday language marka berrita haddii ay dhacdo qof ingiriis ku hadla ama english ama maraykan ama canadian ama australian ama new zealand oo wadamada luqadda ingiriiska looga hadlo adigoo isuba ayaa waxaad dhihi kartaa waa adigoo kale waxaad dhihi kartaa hello may I introduce myself mise kaa bari karaa my name is wixii lagu yiraahdo and this is my son Edward marka waa fahmi kartaa dhawaaqina waad fahantay qoraalkina waad fahantay kadibna waad ku dhaqaaqi kartaa ugu dambaystii paying the bill bixinta biilka waxyaalaha lagu keeno sida gaaska korontada internetka telefoonka wax walba ayaa la yidhahdaa marka haddii aan saan u furno waxaan leenahay maqaayad Anna and Jen are looking at the bill and calculating how much each of them should pay. Sida caadada ah dadka ka yimaada wadamada reer galbeedka ah haddii ay israacaan dhaqankooda wuxuu yahay in wixii la cuno la isla qaybsado half iyo bar loo kala bixiyo anaga run ahaantii dhaqankeena Soomaaliyan waa ka duwan yahay marka hal qof ayaa wada bixiya taasna kolley waa different story marka maqaaxidii ayay soo galeen cuntay cuneen kadibna waa wada qaybsanayaan marka waa kan halka let's see at salmon aniga waxaan cunay malayga la yiraahdo salmon oo bilowga ah kaas lacagtu waxay ahayd lacagta ingiriiska oo 5.9 iyo beachna waa cunay halaasa marka iminka waa wax adiga shakhsiyan ardayga baranaya kugu dhici kara sababtoo ah waxaad geli kartaa adiga qof kale oo asxaab aad yihiin oo laga yaabo xataa ingiriis inuusan aqoonin ayaa waxaad soo geli kartaan maqaaxi kadibna xilligii uu dhammaaday cuntadii aad cunayseen halkaas ayaad ku qaybsanaysaan marka qaybsashadii kadib waxaad lacagta ka bixinaysaa maqaaxida ka bixinaysaa marka beginnerska marka lagu leeyahay qaabkan ayuu ku bilowdaa luqadda ingiriiska kaasoo ah haddii everyday
aad hal erey aad ka baratid waxaa hubaal ah in ereyadan halkan ka baratay ay ka hor imaan karaan maalin walba marka micnaha waxay tahay practical oo ah in wax walba oo maaragtay aad baratay ama aad ka maqashay halkan aad repetition ama aad ku xilin kartid oo aad baran kartid marka markii ay soo galeen ay ka hadleen maqaayadda waxay ay cuneen biilkanoo yimid wuxuu ahaa £20.15 qaraarada yar ayaa soo raacday oo senska ah and I need to pay $22.50 waxay cuneen gebi ahaan saan ugu wada hadlay marka waxaa la doonaya adigoo ardayga dhegayso qof saaxiibka isla dhegaysta ku celiya waxa ay sameeyeen markaad ku celisaan kadibna waxaad fahmaysaan qaabka wax walba ay u socdaan marka haddii aan ku laabto oo dhanka iyo waxaan ku laabanayaa waxaan ka bilaabanaya halkan ayaan kasoo bilaabaya grammarka lessonka aan kasoo bilaabno waxaan filayaa in aad halkan ka bilaawi doontaan practicalkan I'm George kadibna magacyadii they we are marka muhiimaddu waxay ahayd inaan ogaano vocabularyga ereyada ah functionka oo ah barbarskiisu u yahay in luqadda ereyada laisu keeno marka micno kala duwan ay yeelan karta functionka waxa hadduu function jiro meel uu ka dhacay function I'm going to for function functionka luqadda la isku xirxiro iyo verb oo ahaa kii aan ka hadalnay hadda oo kan ugu muhiimsanaa kaasoo ahaa I you he she it we you they kuwaasoo raaca was where was where was where iyo are is are saasoo raaca iyo will be kuwaasna waxaan ku baran doonaa casharada soo socda marka muhiimaddu waxay tahay inaan ogaano qaabka loo barto grammarka functionka vocabularyga pronounceka aan hadda aan aragnay iyo exampledii kala duwanaa marka waxaan filayaa casharkan xiisaha leh ee English Language Beginners Course Part 2 kaasoo aan ku baranay grammar functions vocabulary iyo dialogues oo ah kii ugu dambeeyay wada hadalka halkaas ayaan kaga baxaynaa wixii macluumaada mar walba waxaad nagala soo xiriiri kartaan info@sologroups.com anigoo ah macalin cabdinaasir intaa wada kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu